السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كوري أن سي ودينا أو هاي step response of RC circuit. سيدا عشر كده أو عشر كوري نوجود دنبيسي وهو هاي RC circuit أيان صو فلانقينا أو حنصو صارنا قاعدة أيان صو صار قاعدة أنا صو صارنا قاعدة halka ay taw la mid tahay qiimaha resistorka oo lagu dhiftay qiimaha capacitorka ay la mid qaacidada marka soo saarnay waxaan goormo way qaacidadan waxa way markii capacitorkan uu charger yahay waa kana VO waxay u taagan tahay chargerka asal ahaan ku charger gareysnay capacitorka sidoo kale marka ay waxay u taagan tahay qaacidadanu markii VS ay ka weyn tahay VCU response-ga ama qiimaha capacitor voltage-ku wuxuu la mid noqonayaa intaan ayuu la mid noqonayaa intaas markaa haysano haddaba markii aysan charger lahayn markaysan lahayn qaacidadu maxay noqonaysaa oo capacitorka marka hore oo zero ahayba kaliya waxaa ka baxaysa meesha v series-dana ka baxaysa waxay noqonaysaa VT waxay la mid tahay VS ilaa inta VS ku jirta intana VS marka hal VS aan ka saaraa VS 1 minus inta T minus tau intaas la mid noqonaysa qaacidada markii aysan jirin charger oo salahayn capacitor marka labadan qaacido waxaan filayaa inay caddahay markii capacitorku uu charger yahay iyo markii charger ahayn haddaba haddii aan ku muujino qaab sawir ahaan aan ku muujino waxaan dhahaynaa markuu chargerka yahay saanaan dhahaynaa markuu chargerka yahay halkaanu waa zero sax markuu chargerka yahay halkaana waxaan ka dhigaynaa V0 macnaa halkaas ilaa intaan waxay ahayd V0 ahayd sax halkaana waxaan ka dhigaynaa VT waaye macnaa halkaana VT waa waxaan raadinaynaa VT mogtahay marka halkaana waxaan ka dhigaynaa VS ilaa way ka weyn tahay VS iyo V0 VS weyn kadib halkaanay ka bilaabanaysaa macnaa ansarkeena ama resultigeena wuxuu ka bilaabanayaa halkaanuu ka bilaabanaya saanay noqonaysaa markii VS ay la mid tahay oo wuxuu noqonayaa constant waayo markii qiimuhu uu VS la mid yahay meel loo dhaafo kale maahan marka constant ay noqonaysa constant halkaana waa time oo timeka marka sawirkeedu saas uu noqonayaa haddaba markii aysan charger lahayn muxuu noqonayaa markiisa charger lahayn saan sawirku noqonayaa sawirku wuxuu noqonayaa halkaan waa VT halkaana waa time kadib sawirku wuxuu ka bilaabmayaa zero ilaa V0 maba jirta marka wuxuu ka bilaabmayaa zero ka bilaabmayaa halkaana waxaan ka dhigaynaa VS marka markuu VS la mid yahay constant uu noqonayaa sidaasay noqonaysaa markii oo qaacidadan macnaha tan waa sawirkan tanna waa sawirkan sidaasay noqonaysaa graphical ahaanna sidaasay noqonaysaa haddaba qaacidadan kore waxay ka kooban tahay laba qaybood qaybta koowaad oo ah waxaa loo yaqaanaa natural response waa hore uga soo hadalnay inaan hore usoo saarnaa filayaa natural response waxay la mid tahay waa markii uusan VS aysan jirin sax marka VS markaysan jirin saan hore usoo saarnaba waxaa loo yaqaanaa VT waxay la mid tahay V0 oo lagu dhiftay minus T tau intaan waa natural response qaybta kale waxaa la yiraahdaa forced response forced response yaa la yiraahdaa waa markii
kan aan joogno hadda step responsigan markii vs maxay keenaysaa macnaha qaybta vs ay ku jirto waa qaacidadan kore qaybta ay vs ku jirto waa haddaba maxay noqonaysaa vt waxay lamid noqonaysaa v meesha waxaa ka baxday vs ka baxday v sira ka baxday sax v sira ka baxday marka waxay lamid noqonaysaa vs 1 minus e power minus tau intaan lamid noqonaysa marka qaybtan waxaa sababay voltagekan waayo hadda ujeedaa vs bisa ku jirta vs ku jirta qaybtanna waxaa sababay natural response ahaan uu hore u wad sidoo kale waxaa loo kala qaybiyaa qaacidadan kore qaacidadan waxaa loo qaybinaa laba qaybood oo kale waxaa la yiraahdaa transient response waxaa laga wadaa in marka qaybtan qaacidadan waxay leedahay qayb ay ku jirto exponential qaybtaas ma jeedaa qaybtaas exponential iyo qayb fixed ah qaybtaas waxba lama socoto sax marka qaybtan waxaa loo yaqaanaa vt waxay la mid tahay oo transient response waa v0 minus vs e power tau qaybtaas waxaa la yidhaha transient response waayo time ayay ku xiran tahay waqti ayay ku xiran tahay meeshaas fiiri waqti ayay ku xiran tahay tiidaasay ku xiran tahay sax marka transient response waxaa laga wadaa response ku meel gaar ah after time kadib waxay noqonaysaa waayo hadda fiiri constantigan sawirka markaa constantigaas joogo wixii ka dambeeya time walboo la gaaro waqti walboo la gaaro waxay noqonaysaa vs soo baxaysa sax qaybtaas marka constant qaybtan dhexe intaan constantigaas la gaarin waxaa loo yaqaanaa transient response loo yaqaanaa sidoo kale sawirkan intaan la gaarin qaybtaas constantiga ah waxaa loo yaqaanaa transient response qaybtan fixerkana waxaa loo yaqaanaa steady state response steady state response waxaa loo yaqaanaa vss waxay la mid tahay qaybtaas oo vs ka abis step response of RC circuit halkaas ayuu ku egyahay laakiin hal example ayaan ka bixi doonaa aan isku soo duuduubno step response marka laga hadlayo wuxuu ka kooban yahay horta waa circuit ka kooban R iyo C ka kooban sidoo kale waxaa lagu xiraa source marka laga shaqeeyo ama voltage-ka saddex stage oo maraa saddex stage casharkii hore aan soo hadalnay saddex stage oo maraa stage koobaad waa markii capacitor macnaha switch-ku uu ka hooseeyo ama uusan switch-ku daarnayn V0 bisa shaqeynaysa markaan V-dan charger-kan ku jirta capacitor-ka ayaa shaqeynaysa markii V0 ay la eg tahay markii switch-ku xiran yahay V0-na ay la eg tahay VS-na wax shaqeynaya ma lahayn weli V0 output noqonaysa laakiin markuu ka weyn yahay VS ay ka weyn tahay V0 qaacidadan ayaa soo baxaysa qaacidadan ayaan kala falanqaynaa marka haddaba labadan sawir ayaan ku muujinay labadan sawir waxay muujinayaan markii ay V0 jirto iyo markii aysan V0 jirin ayay muujinayaan sidoo kale waxay muujinayaan labadan sawir transient response iyo steady state response transient response waa qaybtan waxaa la yidhahdaa transient response sidoo kale qaybtan waxaa la yidhahdaa transient response ayaa la yidhahdaa wixii ka sarreeya oo VSS bis ay soo baxaysana waxaa la yidhahdaa steady state response ayaa la yidhahdaa sidoo kale qaacidadan waxay ka kooban tahay dhihi karnaa natural response oo ah qaybta V0-da ah iyo forced response oo ay sababto VS-tan lagu apply garay intaas ayaan kusoo gabagabeynaa cashirkeena maanta sidoo kale hal example ayaan ka hadli doonaa wayna noo caddaa doontaa haddii ilaahay yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu